خير هذا برنامج حسن شيخ وهذا مقع دستور كالوصول للفاقي لكن أن لهين iyo xildhibaanada Puntland laga doortay oo halku dhab ka noqday oo aad loo hadalhayo labadaas aan wax ka iraado rabaa midda koowaad waxaan rabaa inaan iraado horta hadda waxa laga hadlayaa ma aha dastuur la dhamaynayo ma aha mid la dhamaystirayana ma aha mid la dhigaraynayana ma aha صح waxa weeye shaar naqshadiisana Ismaaciil Cumar Geele sameeyay turistiisana Ismaaciil Cumar Geele sameeyay xasan inuu gashado u rabo horta weey maxaa yeelay haddayan sidaa ahayn dastuur qabya abaan nooyiin waxa ka dhimanna way sulanqiin waxa ka dhimana awoodii federaalka iyo xubnaha dawladda iyo federaalka xubnaha ka dhimsay u lahan laayeen waxa dhimanayd khayraadka dabiiciga sidii loo qaybsan lahaa صح waxa ka dhimana maxkamadihii waxa ka dhimana ciidanka sidii loo sharciyeyn lahaa صح inta marka la dhamaystiro iyay ahayd in la yiraahdo waxa laga bedelo asagoo la dhamaystirin intii heshiiska lagu ahaa hal la bedelo shaar nin kale ii soo toshaday ii geliya aan qaatay wey shaarkii Ismaaciil ii soo toray ii geliya anigu aan dalka ku haystay wey maxaa yeelay wixii awl heshiiska lagu dooran jiray haddii la baabi'iyo waxaana ayan shaqaynayn anigu meesha aan joogay hala ii saxabi horta wey taa marka arrinteedu waa sidaas laakiin waxay ila tahay ninkii gurbaankayga xaday meeshu ku tumi lahaa baa laga rabaa ayada intaasaan oran lahaa xasanna waxaan oran lahaa xasanow markii lagu doortay adiga Axmed Madoobe oo taariikh Soomaaliya hore u dhicin aad hesheen xilka dabqato dib ugu soo noqday idinku aad u horeyseen qofkii idin horeeyo ku idin hambalyeeyay baana hadal baana idin iri hadalkii baana soo baxaya shan qof oo aan hadal iri adiga iyo Muuse iyo Cabdiweli iyo Saadiyaano afartaasaan mid walba hadal iri dib baana ka sheegayaa hadda waqti uma hayo marka hadalkaan maalinta ku hambalyeeyay ku iri baa soo socda adiga halkaasaan u daynaynaa dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay intayni isaysatay yaa layna kala kaxayn tani kala kaxayn weeye wax socod maaha midda labaadna waxaan rabaa inaan kalmad ka iraahdo waxa aad loo hadalhayaa barlamaankii federaalka oo Puntland baa la hadalayaa waxaa loo hadalayaa qolo waxay yiraahdeen war barlamaanka Puntland tayara ka imaan lahaa Puntland dad magaciisi weeye waa maxay sidaan qolo waxay tiraahdeen madaxweynihii hore u ahaa inaan sheegaba rabo qolo jifi ka mid ah reer Puntland wuxuu yiri inay xamar ka samreen jifi hebel waxaan ku ogaaday hebel iyo hebel bay barlamaanka u soo tirsadeen nin kale wuxuu yiri oo hadda arrintan ka mid oo intii waqtigan hadda jiray ah sida ay u socdaan sidee tahay anigu markaan weydiiyay rag ka mid ah barlamaanka oo ragga meesha looga tagay ah na waxaan iri war maxaa dhacay oo sidaana waxaa la yiri ragga qaarna wasiiraa loo sheegay qaarna dana kala loo sheegay qaarna waxay ku xumaynayaan deni bay kula dirirayaan arrintan inay wax ka hirgeliyaan horta arrintaa ayada ah inay saa u dhacdo waxaa keenay barlamaanka shayga la yiraahdo waxa weeye wuxuu leeyahay calaamaduu leeyahay kow tii dhaqanka Soomaaliya markaan aado waxaa la yiraahdaa nin la